runtii ayaga kasina baan u amaanayaa waxaana runtii aan isleeyahay wax badan ayay runtii ka qabatay xagga shaqo abuurka ee dhalinyarada waxaan ognahay in dhalinyarada maanta magaalada Kismaayo joogto 95% ay shaqaalaan ahaayeen laakiin weli hadda caqabad ay taagan tahay laakiin waxaan leeyahay waxbaa bilowday hadda runtii aad baan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay si kordhiya dadaalka aad wadaan dhalinyarada runtii qalinjabintan maanta loo soo xirayana aad baan ugu hambalyeynaya waxaan isleeyahay ha u malaynina ha isfiina shaqadu haddii barnaamijka laga istaagay yani waxoogaa weliba qalbigiina hagelinina waxaan ogahay teleefoono badan baa lagu soo dhacaya waxaan ii ballan qaadaya anigoo ku hadlaya afka ururka dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose inaadan fikiri doonin inaadan dhihi doonin meeshan shaqa la-aanta maxay tahay inaadan shaqa la-aan ahayn doonin insha Allah waxaad qabateen waa wax aad runtii u weyn kormeer in badan ku tagay idigoo shaqaynayo shaqa aad u adag baad qabateen runtii waxa aad qaadanaysaan iyo shaqada aad qabanaysaan aad weynay waxaan ogahay dadkii aan qornay dad ka mid ah inaynan shaqadii awoodi waayeen laakiin idiga u dhowr adeegteen ma aha inaad dhaqaale iyo wax aad markaa qiimaynayseen laakiin waxaan ogahay inay qalbigiina ku jirto wadaniinimada in wax la qabto maanta waxaan idin sheegayaa ninka dhalinyarada ah oo caafimaadka qaba oo nabadda haysto waa inuu yidhaahdaa maxaa dalkayga u qabtaa maxaan qaban karaa maxaan soo kordhin karaa haddii waxa laga qabto shaqa abuur halay siiyo adigu hadii adiga markii aad lista aad waxaan qaban kartaa isku dayo